bahashan la yiraahdo kanaacada nimankaasi ay xaqireen ay yiraahdeen quraanka dhexdiisa maxaa loogu sheegay laha ajaayib waxay leedahay ajaayibkeeda inaynu wax ka soo qaadanaana ama wax ka xusnaana ajaayibka imika laga arkay markii daraasadaha la sameeyay ee qalabkan horumarsan ee mijarada iyo mikroskoobyada la isticmaalay waxay taasi daliil u tahay icjaaskii xalayto aynu ka soo warabaynay ama mucjisnimadii quraanka ee loo yaqaan al-i'jaaz al-ilmi icjaaska la xidhiidha xagga cilmiga iyo horumarka quraanku ka sii waramay bani aadamku gadaal ama hadda ay arkeen kanaacadu iyadoo ah xayawaanka yar sidaa u yar haddana waxa la ogsoon yahay inay bani aadamkaba ka xoog badan tahayba oo marka u horeysa ay weerar nagu hayso hay'adda caafimaadka adduunka ee munadamatu sixa alcaalamiya waxay soo saaraan sanadkiiba bani aadamka inta ka dhimatay iyo dilkiisa waxa uu sababaha basharkii adduunyadan ku noolaa 7 bilyan kor u dhaafay imise qof baa dhintay maxaa sabab u ah si bal caafimaadka loo horumariyo oo dib loo eego waxaan u malaynayaa 2014 meelaha inay taqriiban daraasadii ka dambeeyay ma hayneen ayaa waxay soo saareen in tirada dadka ka dhimatay ay kanaacadu ka dishay 750 kun oo qof halka sheekay adduunyadan dadka ku nool kanaacadu waxay dishay xayawaanada adduunyada wax dila number 1 kanaacada noqotay xayawaanka adduunyadan basharka dilay ee khatarta ku haya kanaacada yar ee leeydi maxaa tusaalaha lagu soo qaatay dad caariday ayaa ka noqotay 750 kun oo qof bay dishay halka bani aadamku dilka iyagu istilayeen uu noqday 437 kun oo qof waa khatarta dadku isku hayeen dadkan caalamka ee hubka sitee adarkaysa leedahay ku waxba iska gama haray inta kanaacadu dishay ayaa ku soo laablaabmaysa way sii wadeen oo waxay yiraahdeen bahalaha aad looga cabsado sida tacaabiinta kale maska iyo aasada iyo sunta badan iyagu 100 kun oo qof bay bashar ka dileen sanadka aydan khatarta badan miciyaha waaweyn ilaa 5 kun oo qof bay dad ka dileen tamaasiixda bahalka u ilka weyn wuxuu ilaahay abuuray ee ugu khatar badan wabalkan ixaaska la yiraahdo kun qof baa ka dilay sanadka marka halka maxaad ka aragtay هاشي الحقيقة أولها وين بيضا وهاي سوا وترت وين توحد الشوارع دي قبيلة هي بوعة شاي دي قدرك كم وسطة وين وحنت السمايسة كرهنتو أيام تاسي سبب طايبة كوي هذا رجعه ويسكيل كقبوي هنا دعان كدرت إيه أو حي كعبة لكن تبديكم بالله ينقص له قلب كنت دراسات لو سمينا يا مركا متطور كأه waxay yiraahdeen waxay dhakada ku leedahay kun indhood wax badan la yaabtad ku arki laakiin awoodii ilaahay u beenoo muujinaya waxaas afkana waxay ku leedahay 48 ilkood inagu intaynu ilkaha leenahay ilkeenu waa misad ma tirisay wali ilkaaga 230 meelahaas way iyadu 48 way wayna dheert waxay leedahay 3 wadne mid qura hadaad adigu leedahay haduu istaago ay ku dhamaanayso iyada 3 wadna isbedelaya waxay leedahay sidoo kale sakaakiin lix ama khartuumkeena ay gafuurka ay waxay ku leedahay 6 mindiyo oo ka khatarsan kuwa dhakhtarku wax ku qalo markuu wax qalayo 3 baal bay leedahay oo dhinac walba 3 baal bay ku leedahay baan leeyahay wuxuu ilaahay awood u siiyay marka ay qofka bani aadamka doonayso inay soo weerarto ur aad u dheer oo qofka bani aadamka dhididkiisa ayay soo urinaysaa iyo kaarboonkan ka soo baxaya waxay ku taqaanaa marka halka inuu qof hurdo waliba inuu hurdo iyo inuu soo jeedana way kala taqaanaa kaarboonka laftiisa ayaa urtaa ku kala garanaysa waxa muzawwada ilaahay uu siiyo shucaac ay ku arkayso qofka jirkiisa oo ay ku garanayso xididada xambaara dhiiga meesha ay ku yaalaan ayay ku arki karaysaa wuxuu ilaahay awood u siiyay inay wadato qalab badan oo cusbitaaladan casriga ilma bani aadam aanay haysaninba oo shaybaara marka qofka kolkay u timaado waxay ku garan karaysaa urteeda inuu qofkan yahay mid dhiigiisu wanaagsan yahay isticmaali karayso iyo inuu yahay mid ama xanuunsanaya ama aan dhiigiisu macaanayn waxaad aragtaa qof baa wada seexanaysana adigu caawa kanaacad ka cabanaysa sidee wuxuu ku leeyahay kanaacada sheegaysaa maxay ahayd
fayruusaad iyo malaha waxba isaga la socda dhiiggiisoo marka dadku waa ku idhaa aniga dhiiggaygaa macaano kaneecadu ima dayso iyo aniga dhiiggaygu u qaraadhiyo kaneecada ima taabato markay qofka doonaysa inay durto waxay ku samaynaysaa takhdiirkaas waa maxay qofka marka la qalayo soo lama suuxiyo way ku suuxinaysa markaasay dhiiggiina taxliil ku samaynaysa markaasay tamyiicna ku samaynaysa tamyiicu waa maxay dhiiggu si aanu isu qabsanina dareero uu noqdo meesheedan yara dhuuban mari karaa dawadaana way ku daraysa markay kaa dhammaysato ayay ku sii daynaysaa horta wixii ay ku raacinaysa bakteeriyadii wixii ay ku raacinaysa sida malaariyadii marka iyadu kaa dhammaysataa bay ku sii daynaysa si aanad miskiinkaa iska hawaaraad tahay aan dhiiggii yaraa kaaga daadanin dhiig joojinna way ku raacaysa iyadoo sii dhaqaajinaysaba ayaad adigu meeshii xoqanaysa markaa wixii ay ku shubtay ee ay ku suuxinaysa ayaa markaa bararkan iyo waxaan keenaya way kaa dhammaysatay markaad soo boodaysa aad meeshii ay ku cunayso min cajaa'ib illaahi bay ka mid tahay cajaa'ibteeda waxaa ka mida noocan ilaahda jinsigeedu ilaa 35 qaybood weeye noocyadeeduna ilaa 3000 meelahaasay gaadhaan waxaa aad u la yaab badan cilmiga casriga iminka waxa lagu ogaaday ama qalabkan wixii aan ishu qabanaynin lagu eego waxay leedahay bay yidhaahdeen xayawaan kale ama xasharaad kale oo ilma qabatiya oo ay xambaarsan tahay taashu waa isxambaar marka xasharaad kale dusha ku sidataa wuxuu talo ilaahay ugu raray ilaahay baa garanaya innagaba imisaynu xambaarsanno qaar baynu dusha ku sidanaa ma aragno qaarna calooshaynu ku sidanaa mataa lagu leeyahay qofka bani aadamka calooshiisa waxa ku jira xataa bakteeriya u baahan yahay oo dheefshiidkiisa ka qayb qaadanaysa Soomaa marka xayawaankaasi ama xasharadaa yaran microscope-kun lagu arkayo waa isxambaarayna dusha ku sidataa waxa ay daweysana Allahu a'lam wali lama ogaanin warimada qaar kood baa markaa waxay ku fasireen in waxa ay dusha ku sidataa uu noqon kara fama fawqaha marka macnaheedu waxa weey ilaahay tusaale wuxuu ka dhigayaa bacuudatan kaneeco fama fawqaha iyo waxa ay dusha ku sidato ila wuxuu diidayaa ma jireen lagu fasiro hadii wixii dusha ay ku sidatay la helay oo xasharaadkaasa marka idinku xasharaad kaneecadana sheegaysaan arkaysaan kaneecada ilaahay tusaale idinka dhigaya ka yaray dusha ku sidatana tusaale ka dhigaya almuhim intaasi naga filan